kala wacan habluhu muuqiyo qurux kala ilwaadrooni kala weyn milkiyo gobonimo mawle kala siiye kala mudan markaad weheshateed wada jir moostaani kala mudan markaad weheshateed wada jir moostaani kala wacan habluhu muuqiyo qurux kala ilwaadrooni kala weyn milkiyo gobonimo mawle kala siiye kala mudan markaad weheshateed wada jir moostaani kala mudan markaad weheshateed wada jir moostaani warsan weeye caawaba haddaad nolol wadaagteene isku waara waxaad mulkiday oo gaari weeyaane warsan weeye caawaba haddaad nolol wadaagteene isku waara waxaad mulkiday waa gaari weeyaane wadnayaal isdoortaa tihiin nolol wadaagaaye wadnayaal isdoortaa tihiin nolol wadaagaaye halbowlaha iswadaba tihiin labada waaxyoode oobad gabdhiyo wiilal bale weynaydisii oo ubad gabdhiyo wiilal bale weynaydisii halbowlaha iswadaba tihiin labada waaxyoode oobad gabdhiyo wiilal bale weynaydisii oo ubad gabdhiyo wiilal bale weynaydisii waa habeenkii Somali World YouTube channel. waxaad tahay hilaac walac yidhi nuurkii waa beriye waxaad tahay xariid wana كاديجا يسانسن أيان دارت قروح الواتسن أخلاق وعن قبل إدبسن أمام بدن روح وراسن الله كاديجا يسانسن أيان دارت قروح الواتسن أخلاق وعن قبل إدبسن أمام بدن روح وراسن
aawadaa ogansan adduunka dartaa ka hofsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan anaa aawadaa ogansan adduunka dartaa ka hofsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan hoy hoy ammaansan horreyn ilaahay baa mahadle inoo suurtageliyey inaan noolaano munaasabaddan isugu nimaadno saaka aadka u qiimaha badan leh waa munaasabadaha dadka islaamku isugu yimaadaan munaasabadaha ugu qiimaha badan leh waa munaasabad lagu yagaleelayo qoys islaama oo ku soo biiri doona insha allahu tacaala qoysaskii islaamkaha waxaynu saaka aynu halkan isugu nimid meherka injineer khaalid cabsalaan xaaji xasan iyo sagal xasan axmed sidii caadada ahayd xafladeen gudageli doonaa waxaynu ku bilaaban doonaa aayadaha qur-aanka kariimkaa baynu ku bilaaban doonaa waxaynu akhriyi doonaa sheekh maxamed xuseen kusoo dhowsha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ولا ليال سيدا أين مغريني حفلة قيمها بدن بين سجون نمت أو ده أين دعاءنا سي ودي دونه أنا لا هاي كل بركيسان المستقبل كنا سي بركة بربها كيالو أنت وحمل النور راعين آية سورة دنا إنه آخرنا إسكا كوبان ده إنه آخر إسكا وضع حسوسا هاي ayaa kolkii nabi maxamed rabbi soo diray bay qoladii mushrikiintii carbeed yidhaahdeen dee iminka waa qayladaada fara badan ee rabbigan ku soo diray muxuu yahay bal noo sifee muxuu yahay dee kolkaasuu rabbi suuradan soo dejiyo waxaad ku tidhaahdaa allah weeye waa macbuudka xaqa ah axad waana keli macbuudnimada cidi lama wadaagto cibaadana saddex arrimood bay culimadu ku soo ururiyaano waxay yidhaahdeen waa inaad cid ka amar qaadanayso waa cibaado hadday rabbi tahay dee waa sax oo dee waa kii ku abuuray ee ku lahaa ee ku talinaya haddii kalena dee khalad bay noqonaysaa waxay yidhahdeen waa inaad dariiq raacdo haddii dariiqii nabi maxamed uu yahay calayhi salaatu wasalaam waa dariiqii rabbi dee rabbi maynaan arag manuu inala hadal haddana dee wuxuu doonayaa dariiqiisii inaynu raacno dee dabeetana maxaa la yeelayaa waxaasoo dee khuraafaad iyo bidca waxaa keenay dee kolka la baran waayo warka rabbi iyo warka rasuulka dabeetana wuxuu yidhi dee rasuulkaasun ku soo dayda isagaa sidii aan doonayay soo waafajiyay isagaa dariiqaygiina haya kolkaa dariiqa nabi maxamed un baynu haddaynu raacno dee dariiqii rabbi baynu haynaa haddaynu ka leexanana waa dariiqii ibliis wey ta saddexaad waxay yidhahdeen waa inaad cid haya tidhaahdo oo inaad hadal ku soo celin dee rabbigaa kulehee adduunye iyo aakhiraba kuu talinaya haddaad haya tidhaahdo dee waa dahab haddaad dee markaa dee cid kale haya tidhaahdo dee waa beritu kaa dhimanaya dabeetana maxaa hayadaada halkay tegi kolkaas saddexdaa rub bay kusoo ururiyaan dabeetana wuxuu yidhi rabbi waxaad tidhaahdaa qul waxaad ku tidhaahdaa ka isoo diray الله هو يوم معبودك حقه أحد واكلي لم يلد ولم يولد وحنا ما دلنا لما ندلنا يعني أصل يفرع ماله أو بلا ونما الهرب دمادنا ماله الله السمد وكمرك حقي صلى الله عليه وسلم ما أنت مشاكل كتاجنا اللي دوني إنه قعمها هذين يا مالب وتاجنا لم يلد ولم يكن له كفوا أحد عد wax la wadaagtaana ma jirto
udhiganta oo lala simo oo wax lala wadaajiya ma jirto ku dheh kolka dee hadday tahay markaa maaragtay saddexda arrimood ee aynu sheegnayba cid lala wadaajinaya ma jirto haddaad markaa maanta keligii dee aad rabbi ka dhigatana dee waad liibaani maanta berritana waad liibaani haddii kalena dee maantana markaa maaragtay dariiqii sax ahaa baad ka lumi berritana oohin fara badan ayaa socon doonta walkaa walaalayaal dee aynu markaa maaragtay garanno waxaynu abuuranahay waxaynu meeshan u joogno waxa markaa maaragtay inaga dambeeya waxa markaa maaragtay ciddii ina abuurtay ay naga doonayso waxaasoo dhan aan garanno dabeetana nafaheenna aan wanaajisano nafaheenna aynu wanaajisano wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ورحمة الله وبركاته شيخ محمد عاد بو مهسن يحي تفسير كايا آيات القرآن الكريم كا ناخري إن إلهي كتشساي سيدو إننا كوي إننا هنوان فوعو وحفلة دقن دبعة وحن قد قيل دونا يمكا قيبتي دقن كا وحي هذا الله كلمة ذي كدن بين دونا إن شاء الله ونسوسو نقن دونا وحن دونا يينا حق يينا كانوا غيرو عاقل محمد حرسي سو dhinaca kale inanta uu weydiisto inanta hawsha dhaqankana uu usii geeso kala caaqil kusoo dhawo هذا يقيمة له إذا كيدو ونحسن هذا أنت يسقط من ذاك سوق يبشاي بودهان عد والبانو تيجي كده السلام يا وحب السلام يا سلامة الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب إلهي ما مهدى الله نبعد بدني لكم كريم نسيري أيام هذا الحمد لله رب العالمين إلهي نوح كبرنا وحن الله بقر يا إلهي ولقد بدقليو أنت كنت كقدبو أردت أنا يسقول بوادق كيدو ولا السلام مناسبة الله مناسبة بركيسان ذات كان وحهذا كوبتا أردت لو كلام برك ليسوي بعدو مرك دان إسكرنا ما بقى بيروح سويدي سنة لكن مرك هيروح سويدي سنة أيوه ذات كيدو وكذا حيسا وحلوه دوبا لقوض هذا الحقوق أبتوا يلي عدة يسوت بين وحدي سنة سوا عدة سكرها مركا هذا الحقوق بدر بايو ده تهلوني بدوبا مركا أيام بنك هذه دونا وحن سفكن نجسور كذا ويدي سنة سجل حسن أحمد وعنو سفهان يدي ويدي سنة ورهانا نودونيو وخالد عبد السلام حسننا نسيسان بابي ودي سنين ورا بهاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت ان ودي ستين سقل حسن احمد وعبد السلام ودونيسان خالد عبد السلام أحمد ونودوسين قرية قبيل بقى lacagtaa gabaadkii waa 20 milyan oo waa tii tolka ina doorta waa noo guddoon marka hore waanaanu guddoominay lacagtuna gabaadkigu waa 20 milyan iyo $2,000 oo yarada yarad hortiya meherkana noo raaciya wana mahadsantiin من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن وحي الشيخ خالد إن تكون الشيئين لو بقولوا قرام
intaasaad haysaa anigaa ku mateli doonaan u malayn insha allah isagana waxaynu guuri hay insha allah wilaayadii waana waan ka aqbalay Khalid anigoo ka wakiila Xasan Axmed oo uu wakiishay inaan ku guuriyo inantiisa Sagal Xasan anigoo Xasan ka wakiila Sagal waxaan kuugu guuriyay 200 gram ee dahabka ah oo nooca 12 wadanka ayaan kuugu guuriyay anigoo Xasan ka wakiila guurinta meherka waan aqbalay waana ku guursaday بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير كل ده دمانتي شهود بين وضنهاي oo waxaan mikrofoonka u dalacayba waa nooca gaar ahaanna waxaan qori doonaa dhinacan waxaan ka qori doonaa Maxamed Kaysa Axmed dhinaca kalena Rashiid Yuusuf ayaan ka qori doonaa insha Allah miisaanka kafadaynu saaray inta wixii ka dambeeya Khaalidow imika hodheelkan markaad soo gashay iyo hoolkan markaad noogu timi qof kale aad ahayd mas'uuliyad kale ku saarayd oo gaara imikana waxaad noqotay qoys oo halkii Khaalid yare lagu yaqaanay reer Khaalid baa lagu oranayaa mas'uuliyad baa ku fuushay xagga Ilaahay iyo xagga maaragtay dhaqankaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala arinta guurka sidoo uga hadlay amba aayaadku kaga hadlay waad la yaabaysaa mararka qaar kood Ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu guurku yahay aaya min aayatillah waxyaabaha Ilaahay lagu garto aayad kamida waxa kale oo inta dheer Ilaahay amar buu bixiyay amarka wuxuu saaray ragga ayuu wuxuu alla faray waashiruhunna bil ma'ruf dumarka waxa uu la dhaqantaan sida wanaagsan ma'rufna waxa la yiraahdaa shay kasto shariicada waafaqsan dhaqan haduu yahayna shariicada ku toosan waxaan rajaynayaa mas'uuliyadda inaad ka soo bixi doonto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qoys wanaagsan baad la xidhiidhay aduna qoys wanaagsan labadiina abba waan qaani Cabdisalaam Allah yarxamu saaxiibaan ahayn Xasanna wali saaxiibkaas aan nahay akhlaaq iyo diin ba qoys ka soo jeeda labadiina qoysba marka nimca lagu daray baad heshay Allah ku barakeeyo ubad khayr qaba Allah idin kala siiyo kuwa ergeeya aan maaragtay loo ergeyn Allah idin ka dhigo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku barakeeyo asalka laftigii rasuulku ugu duceeyay barakallahu laka barakadu macnaa waxa weeye khayr fara badan marka laftigana wuxuu koobayaa adduunka iyo aakhiraba wixii wanaag lahaa ducada rasuulka ayay ku kooban tahay Allahna ha ku barakeeyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dabcan iyagoo soo koobi doona hadii Ilaahay raahdo dadkuna ayaad kooban yihiinba waxaan u yeerayaa xagga inaka waxaan uga yeerayaa عاقل عبد الرزاق محمد أسكر بانيريا أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه هراء خالد عبد السلام حسن يسقى حسن أحمد وحنقول دعائنا يا دعاء رسولك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير أو في الخير مركه حكتاء أروس كانوا أروس بركيسية هاي calaamado badan ayaa markaan soo galay iyo muuqday mid weeyana inaan barakaysan waxa lagu garanayaa qoladeedan bahadha malaawubaan u nay saddexdii bahood bahadha walba uu soo casuumay hadaa awubaan aanu naho abihi baan u dhalay marka ninkaas xiriirka halku gaarsiinaya halkaas ka garanaysaan marka inanka awuuna waanu ahay adeerna waanu ahay inantuna dar reer barakaysan bay ka dhalato iyadana abtina waanu ahay adeerna waanu ahay marka sheekh de meherinayaana waa sheekhda ugu weynaa waa sheekh Casmaan reerkan inanku ka guursadayna waa biciliyo daciidagal reer lala xidido waa kii ugu macaana marka waxa ila tahay horta arrinkan uu isa saaray inagana wuxuu inooga baahan yahay duco علمي كلام ماشي كتير ما تشري إنك ندعو بينه جبهين إن كان أنا وجوه هنا وحلا يرهر كعاد لحد الداي وهرهر كله يرى الباب اللي جالي اللي أنا مثل جب حابة ملاي مركا ده واد نقيستي الله كبركي إن وحن وجود عين يا دعاء الدقنك
waxaan ilaahay uga baryaa inuu ubad rag iyo dumar bale kala siiyo ilaahay waxaan uga baryaa adduunyada inuu nimco ku siiyo aakhira janno ku siiyo ilaahay waxaan uga baryaa kuwa maradoodu istaartamay kuwa maankoodu istaaray inaanu ka yeelin intaasaan anigu kusoo gabagabaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jief caaqilku aad buu mahadsan yahay waxaan uga yeedhi doonaa xagga inanta waxaan uga yeedhi doonaa xildhibaan caaqil axmed xaaji cabdikariin yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaynu ka hambalyeynaa Khalid arooskiisa iyo ina Xasan Axmed waxaan leeyahay sidaa sheekh waanadii sheekha dhameeyay diiniga ahayd warkii kalena caaqilka looga dambeyn maayo waxaan leeyahay ducun baa halkan ka bannaan marka aroosyada la joogo kanun maahe dadku wuxuu ku daraa waxyaabo saa'ida iyo faan iyo hambalyo looma baahna baan anigu qabaa waxaan leeyahay ducaa loo baahan yahay ducada qoyskaa la dhisay ayaa loo ducaynayaa waxaan leeyahay qoyska allah isu barakeeyo waynu dhisno imika waa qoyska allah isu barakeeyo qoyskii la isugu ergeeyey ilaahay kama dhigay kuwii wuxuu ergeeyey allah ka dhigo dad iyo dunyaba allah ku manaysto mid khayr qabta awlaad khayr qabta iyo arsaaq khayr qabta allah siiyo waxaan leeyahay innagana xasanaad allah inaga siiyo inteena halkan fadhidana waxaan leeyahay ma kala nihin qole inta halkan ka soo gashay ama xaflad walba ka soo qayb gashay way isku qoroon way isku dadoon innaguna caa'ilad baynu dee kulligeennahay waxaan leeyahay sidaa wanaagsan ee loogu wada yimid maanta dhan walbana mid walbana isaa la isugu yimaadaa way habboon tahay waxaan leeyahay xafladdeena innagana allah jara inaga siiya iyagana haysul barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ما أنت أنا قدتك ما بدو سنكره dadka waxaan ku badawsan jiray taxayar yar oo gabadho ciida gala tiriya way isla wada inagii waxaynu isu sheegnaa ma jiro waana la wada gaabiyay hadalka aniguna hadalkii ugu gaabnaa baan odhanayaaye sharixii uu sheekhu inoo sharaxay aayadda qur-aanka ah iyo allahuma salli calaa maxamed ducadii uu sheekha weyne inoo duceeyey iyo allahuma salli calaa maxamed hadalkaa ku saabsan in saddexdayadii bahoodba la soo casuumay oo saddexdayadii ducaba la doonayo saddexdayadii ducaba waa la doonaya iyo hadalkaa u dambeeyay habarwadaagay yidhi la isugu noqon maayo ilaaha casa wajalli iyo reerka haynoo barakeeyo sagal iyo khaalid ilaahay arooskooda iyo guurkooda allah haynoo barakeeyo ilaahay mid barakalaha ka dhigo dhan kastoy baahi ka timaadaba allah ka daboolo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله ثناء الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد مركا وجوه الرئيساء خالد عبد السلام حاج حسن يسجل سجل حسن أحمد علي علمي ويقول يردك تيو ده تيو العكتي اللي يدي بقى اللي يسوق هذا يركان محيد شيء جوايو تيو اللي يدي بون وكعبين كروايو وبنقلين كروايو ونجا هالك جايمين مركا واحد هيدين يقول يرد بدقان كل هذه اللي يري مركا ورا واحد لا هاي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بالخير بان أي الله هاي محي هيدي خالد هذا الله يسوقين بركيو وحهبالة هذا الكي هالكان عن كور الله وحيد عاقل عبد الرزاق إسلام النجا أيا شيخ باحنت كوعدي ضدك شيخ تموق موقتنا كورن بيتني تموق موقتا وحويا وحيد موقدا ولا شيء يايو إن أنت وحي كسوتشي دا حضارة وعبد الرزاق شيء هالكي منبع هو هيدا أي كسوف شيء حاجي عبد الرحمن قدير أي كسوتشي دا مركا وحن ورا لها وحماشة كل ماي حضارة يدعو عيالكي ملا قولدي قوي ونوي مقلي ساي دعو عيالكي
ducayaalkii allah isu barakeeyo markaa waxaan leeyahay adeero markaad yare afkara weydo inanta cabdikariinna waa walaale cabdikariin dabeecaddiisa wanaagsaneeduna eeg wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار والوهاب الرزاق والفتاح والعليم القابض والباسط الخافض والرافع المعز والمذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود المجيد الباعث والشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر والباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع القني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي والرزق رشيد الصبور إلهي وأسماءك الحسنى بانك مبري عيدا كاهرتين صوفريا كوا دبر كيغا دمو فديوا إلهي جنة الفردوس اسمك كاين إلهي إن كاين انتانا إلهي إن كاين انتانا إن كاين انتانا وبد خير قبا وبد خير قبا ورنا حريريو دين الإسلام كو غرغارا أنا حق بهد قصدان كسعدا دقسقي من هني كباجانيدي ku sheegi maayo duqsina sheegi maayo waxa weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa in labada caruur aynu siinay ubad khayr qaba oo diinta islaamka u gargaara oo xiriiriyo ilaahay ka dhaxaligeeyo idin kale waxaan nin walba ugu ducaynayaa muraad baad leedahay muraadkaaga oo macsan Allah ku siiyo anigana aniga mar walba waan ducaystaa ducada tolkaan jecelahay gaas sariidii karbay haye ilaahay caafimaad ii weydiiya ilaahay caafimaad ii weydiiya sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammad آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفلي حفلة لنا كفتني هذا الكواب عنين قويس كني لو دعيين بمدني هاي وحنا نقول دعينا دعاء رسولك صلوات الله وسلام عليه بارك الله لك وبارك عليك والجمع بينكما في الخير أو بالخير والسلام عليكم waxaynu ku sii siqaynaa guntiga gabagabadii waxaa inoo soo xidhi doona munaasabadda boqor raabi yuusuf inoo soo xidhi doona aan ku wareejin doonaa iminka waxaan salaamayaa dadweynahan caylada ah ee quruxda badan ee madasha quruxda badan isugu yimi labada caruurta ee aynu isu meherinayno ilaahay waxaan uga baryayaa inuu waafajiyo khayrka injineer Khalid Abdisalaam iyo aqoonyahan Sagal waxaan leeyahay ilaahay ha isku keen barakeeyo ubad khayr qabana Allah idin kala siiyo inta markaan dhaafo waxa weeye kaftanka waqtiga iska soo raaciyay wuxuu ka soo jeedaa inaan koobta aqoonyahankii beerka ciidagale xagga diinta iyo xagga maadigaba ugu horeeyay uguna badnaa wuxuu ka soo jeedaa xagga ganacsigana reerkii ugu horeeyey inantuna sidaa la sheegay ayaduna waa la mid oo waa laba reero xadaaradii ka soo jeedo waxaan leeyahay allah ha isku kiin barakeeyo ilaahay waxaan inooga rajaynayaa aafooyinkaa socda ee adduunka oo dham camimay in ilaahay inaga nabadgeliyo innagana beerkeena burcad isku mariyo ubadka aynu isku guurinay xalaashaana ilaahay isu barakeeyo waddankana ilaahay amni iyo istiqraar inaga siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantiin dhigaya sansan ayaan dhalad qurux ilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhahsan allah kaa dhigaya sansan
ayaan dhalad qurux ilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhahsan أنا أوضع وكنسن أدوك درتا كوفسن نسيبك الله هجكسن أيانكو هلي دعيسن أنا أوضع وكنسن أدوك درتا كوفسن نسيبك الله هجكسن أيانكو هلي دعيسن